saaxiibayaal gebi ahaantiinba soo dhawaada. magacaygu waa Bashiir Cabdi. waxa aan jecelnahay inaan bilaawno koorso magaceeda la yiraahdo AutoCAD Drafting Course. koorsadani in badan waxay aad u anfici doontaa ardada barata engineering oo dhan, haddii ahaa lahayd civil, haddii ahaa lahayd electrical iyo haddii ahaa lahayd mechanical. sidoo kale dadka graphic designerska oo kale way anficaysaa si aad sidoo kale waxay u anficaysaa ardada barata architecture ama naqshadeynta. koorsadan ardada aan soo sheegay ama aan soo xusay ayaa aad uga faa'iideysan doonta insha Allah. inta ay socoto koorsadeena waxa ay ku base gareysnaa doontaa course contentskan soo socdo. softwareku waa software aad caan u ah, isticmaalkiisu uu badan yahay, waana haddii la yiraahdo waa la baranaa aad u dheeraanaa, sababtoo ah commandiyadan ninka mid kamid ah haddaa tiraa waa baranaa ama waa qaabka loola tacaamulo inaan fahmaan rabaa, yacni waqti badan ayay qaadanaysaa. soo marka waxaan isugu dayeynaa lectureskan oo gaari doona adiga ilaa 8 inaan sida aan usoo koobi karno oo usoo khulaasay karno anagoo faa'iidada iyo ma aragtay dantii aan lahayn oo ah in la fahmo softwareka qaabka loo isticmaalana anagoo ilaalin insha Allah. waxaan isla fiiri doonaa course contentskan soo socdo. lecture 1 waxaan ku arki doonaa insha Allah introduction to AutoCAD. softwareka naftirkiisa ayaan ku baranaynaa waxa uu yahay iyo cidda iskale iyo qaabku u shaqeeyo iyo meelaha loo isticmaalo waxaasaan ku arki doonaa. lecture 2 waxaan ku arkaynaa starting a new file and opening an existing one. sidee file cusub loo abuuraa ama project cusub sidee loo abuuraa mid kuugu jiray computerkaadana loo soo furan karaa ama loo soo daari karaa. lecture 3 waxaan ku baranaynaa setting up drawing units. sidee loo saxo halbeegyada aad wax ku sameynaysid. markaad tiraa waxbaan sawiraa laazim cabira lagaga baahan yahay. cabiradaada sida aad u saxan lahayd millimeter, meter, inch, feet, mid walba aad ku shaqeyn lahayd sida aad u saxan lahayd muhiim waa. lecture 4 waxaan ku arkaynaa drawing lines, polylines and splines. noocyada laymanka oo AutoCAD-ku uu leeyahay aad u fara badan yihiin, balse waxaan isla arki doonaa kuwa ugu muhiimsan oo common ah. weliba waxaa muhiim ah labadan line sida loo sawiro iyo polyline. splineeskana waa u baahanay marmar mid kale jiro oo construction line la dhaho, laakiin gadaal dambe ku arki doonaa kuwaas. okay, lecture 5 waxaan ku baranaynaa drawing circles and arcs. sidee circle loo sawiraa, goobo iyo arc sidee loo sawiraa. lecture 6 waxaan ku baranaynaa drawing rectangles and polygon. rectangle sidaan u sawiranaa, polygon waa taqaanaa isagana hadda hore u maqashay oo dhowr nooc leh, pentagon, maxalla octagon, okay, hexagon, waxyaalahaas oo dhan sida loo sawiraayo. lecture 7 waxaan ku baranaynaa moving and copying objects. sida shay loo move gareeyo meel looga qaado iyo sida loo koobiyay shay. lecture 8 waxaan ku baranaynaa using stretch, scale and offset tools. stretch waa maxay, scale waa maxay, offset waa maxay, waa baranaynaa. lecture 9 waxaan ku baranaynaa using rotate and mirror tools. sida shay loogu sameeyo rotate ama loo wareejiyo, mirror sida loogu sameeyo mid isaga u ego kale oo kasoo horjeeda sida loo sameeyo. lecture 10 waxaan baranaynaa using array tool. toolkan asagana muhiim waaye, waa baranaynaa. okay, lecture 11 waxaan baranaynaa working with layers. layerska aad ay muhiim u yihiin markaa ku shaqeynaysid softwareka AutoCAD, aad uu muhiim u yahay layers. waana baranaynaa faa'iidada uu leeyahay iyo wax uu taraayo, waxaa indheena ku arki doonaa insha Allah. lecture 12 waxaan ku baranaynaa writing single line and multi-line text. qoraal u baahan tahay inaad ku sameyso ama aad ku qorto drawinada aad sawirtay. laba nooc aan baranaynaa single line iyo multi-line sida loo sawiro ayagana ama loogu qoro AutoCAD-ka. lecture 13 waxaan baranaynaa using dimensioning tools. yacni dimension aad rabtaa inaad sameyso, dimensionka sida aad u sameyn lahayn ayaa baranaynaa. okay, cabiradii aan kasoo muujin lahayn waaye. marka drawinka aad dhammeeyno kadib cabira laga baahan, wax cabir la'aan qof loo gudbiyo ma jiraan, mana la daabaco, sida aad u sameysan lahayd ayadana. lecture 14 waxaan ku baranaynaa creating blocks. sidee blockska loo abuuraa ama loo sameeyaa. lecture 15 waxaan ku baranaynaa creating groups. sidee ashyaa kala duwan oo aan isku xirnayn sidee group loogu dhigo. lecture 16 waxaan baranaynaa trim, extend, explode and joint commands. commandiyadan ayadana muhiim waaye, waa inaad barataa. trimka oo kale qaabka wax loo diro waaye, extend sida leen loo dheereeyo kale waaye, explode sida loo kala furo kale waaye, kan sida la isugu xiro kale waaye. soo marka waa baranaynaa. lecture 17 waxaan ku baranaynaa hatch iyo construction line toolskana ayagana baranaynaa. lecture 18 oo kan ugu dambeeyo noqon doona waxaan ku baranaynaa fillet iyo chamfer tools. marka saaxiibayaal isla socod wanaagsan. waxaana idinka codsanayaa channelka haddaa ku cusubtihiin in subscribe la saaro, videoga haddaa ka hesha like aad saarto, waxa ra'yi ah ama fikir ah oo nagu soo biirinaysidna qaybta comment sectionka noogula wadaag ama noogu reeb. saaxiibada kale sidoo kale ugu baahan koorsada iyagana la share garay oo la wadaag. videogana saaxiibayaal halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaa inoo balan ah lecture-ka koowaad insha Allah.